sheekh xaaji macalin shariif waa magaca malawaalka aan u bixiyay ninka ay qisadani ku dhacday. waxa uu ka mid ahaa hantiilayaasha farakutiriska ee magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. waxa uu lahaa warshad aad u weyn oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 5,000 oo shaqaale. waxa uu wax u dhoofin jiray dalka dibaddiisa iyo gudihiisa intaba. sidoo kale waxaa la sheegaa inuu lahaa in ka badan 10 farac oo ku yaala dalka dibaddiisa. waxaana intaasi dheer in Allah subhanahu wa ta'ala ku manaystay 8 caruur oo 7 kamid ah ay yihiin wiilal. sheekhu waxa uu caruurtiisii geeyay iskuulada ugu wanaagsan si ay u noqdaan kuwa aad wax u barta mustaqbalkoodana ifayo. muddo kadib ayaa sheekhu waxa uu isku arkay xanuun uusan garanaynin waxa uu yahay. ku soo dhawaada saaxiibayaal kanaalka cilmi kororsi oo aad kala socotaan qisooyin waxtar u leh nolosheena. qisadan shantii caruur ayaa shariifkii badbaadisay waa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo laga yaabo intaad dhagaysanayso inaad ilmayso. haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobi inaad saarto subscribe oo aad rukumato kanaalka siina gaarsiisa asxaabtaada kale. sheekh xaaji macalin shariif waxa uu ku noolaa nolol farxad iyo reynreyn faran badan leh. haba yaraatee murugada adduunyada iyo stresskeeda marna sooma wajihin maadaama uu haysto hanti uu isaga xallin karo waxa la wixii soo wajaha. waxa uu ahaa nin aad iyo aad u naxariis badan, ixtiraam badan, dadkana iska weynaynin. ha yeeshee markii shaqada la gaaro ku adag qawaaniintan aad u ilaaliya. maalin maalmaha ka mid ah ayuu sheekhu xaafadiisu ka soo toosay isaga oo ku sii wajahanay xafiiskiisii shaqada ayaa waxa uu dareemay xanuun aad u adag oo lama filaan ah. waxa uu isla markiiba u cararay isbitaalka. nasiib darro markii baaritaanka lagu sameeyay kadib waxa loo sheegay in uu hayo cudurka kansarka dalkana wax looga qaban karin. waxa uu isbitaalkii ka soo baxay isagoo aan ahaynba sheekh xaaji macalin shariif oo aad moodo inuu yahay ruux kale murugada iyo dhibaatada wejigiisa saaran darteed. waxa uu u soo cararay gurigiisii waxauna u gudbo qolkiisa isaga oo haba yaraatee aan la hadlin reerkiisii. reerku waxa ay dareemeen in wax qaldan yihiin maadaama aan lagu aqoonin odaga sidan. markii xaaskiisa ay u tagtay ee isku dayday inay weydiisaan waxa uu diiday haba yaraatee inuu wax jawaabo siiyo. kaliya waxa uu sheegay inuu xanuunsan yahay. ganacsada macalin shariif maadaama cudurka laga sheegay uu yahay cudur halis ah oo inta badan dadka uu ku dhaco geeri u sababa, waxa uu go'aansaday in muddo gaaban gudahooda uu u safro dalka Mareykanka si uu isugu soo daaweeyo. markii uu dalkaasi gaaray dhaqaatiirtii ugu waaweyneed dalkaasi joogay uu la kulmayna waxa loo sheegay in uu aad u soo daahay cudurkan ku faafay suuragalna ay ahayn haba yaraatee in wax laga qabto cudurkan haleelay. dhaqaatiirtu waxay intaasi ugu sii dareen in uu had iyo goor ka dhawaado meel reerkiisa iyo gurigiisa ka dhow yihiin maadaama 2 bil kadib ay geeridu soo wajihi doonto. ganacsada shariif waxa uu ku soo laabtay dalka Suuriya isagoo oo ka qoostay dhammaan nolosha hamiga uu ka lahaa. waxa uu joojiyay qaabkii uu noolaa oo idil. waxa uu bilaabay in uu lugeeyo qof walibana uu salaamo dariskana ka bilaabo. maalinkii xiga iyo goor fiid ah guriga ka soo baxay isaga oo lugeynaya ayaa waxa uu ku soo aaday samaa farihii traafikada. waa uu istaagay si loogu fasaxo inuu dhanka kale laamiga uga gudbo. inta uu taagnaa ayaa garabkiisa waxa soo istaagay wiil dhalinyaro ah oo ay daba socota gabar aad u calaacalaysa kuna dhahaysa walaalow waxa ii joogto 5 caruur ah meel aan wax uga keen haba yaraatee ma haysto. walaalow adiga kaliya ayaan ku aqaanaa i caawi, Allah ku caawiye. ninkii ganacsadaha waxa uu ku soo leexday gabadhii masaakiinta ahayd ee duruufta adduunyada ciishay. waxa uu ku yiri gabadhaydii waan maqlayay adiga iyo inankaasi waxa idin dhex maray ilaa aad ku dhiiratay inaad samayso xumaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga reebay. waxaan rabaa in caawa wixii ka dambeeya wax dhibaato ama murug adduunya aadan la kulmin. waxaan rabaa inaan kaa kafaalo qaado inta nafo igu jirto wax alla wixii aad u baahan tahay bil walibana waxaan kuu qori doonaa mushaar joogto ah, laakiin waxaan kaa rabaa hal sharti oo kaliya. gabadhii waxa ay ku tiri waa maxay? ganacsaduhu waxa uu ku yiri waxaan rabaa maanta wixii ka dambeeya inaad samayso iska daaye inaadan ku dhiiran xitaa qalbigaagana aysan soo gelin inaad samayso xumaan Ilaahay noo diiday. gabadhii waxa ay ku tiri waan aqbalay, waan ogolahay. laakiin ninkii ganacsada intaa kuma ekaani gabadhii mar kale waxa uu ku yiri maxaa ii cadaynaya inaad arrintaas samaynayso? gabadhii ayaa samadii fiirisay oo ku tiri Allah ii cirka abuuray tiir la'aanna taagay annagana na abuuray inoo jeedo aan arkaynin ayaan ku dhaartay isaga ayaana marqaati ka dhigtay. ninkii ganacsadaha
wuu garan waayo waxa uu sameeyo. Wuxuu jaabka ka soo saaray in yaroo lacag ah, wuxuu farta ka saaray gabadhii kuna yiri isii adreeskaaga intaan caawa ku sii mood, barita ayaan ku iman doonaa. Markii waagii bari ayuu soo kaxaystay gaari weyn, waxuuna ka soo buuxiyay dhammaan raashinka ay u baahan yihiin qoys ka kooban 6 qofood. Markuu gurigii yimid ayuu raashinkii oo idil gurigii u dhigay, kuna yiri waxaad ii geysaa ninka ijaarka kugu leh. Markii ninkii loo geeyay ayuu weydiiyay inta uu ku leeyahay. Waxaa loo sheegay in gabadhan lagu leeyahay 3 bilood ayna ku khasban tahay inay 3diina bixiso ama guriga isaga baxdo. Ganacsadihii waxa uu gabadhii ka magay 3dii bil ijaarka ahayd, waxa uuna sidoo kale ka sii shubay 3 sano ijaarkooda. Intaa kuma ekaana waxa uu yimid dhammaan dukaamadii deymaha ku lahaa, iyadana waa uu ka xayuubiyay. Kadibna waxa uu sii dhigay lacag dheeriya si birrita haddii ay timaado wax deyn aan loogu yeelan. Ganacsade intaa kaliya kuma filnaana dib ayuu u soo laabto gabadhii inta u yimid siiyay mushaarka bishii koowaad, una sheegay bil waliba kowdeeda inuu u soo dhici doono mushaarkeeda ay ku maareyn doonto nolosheeda inta ka hartay iyada iyo carruurteeda. Laakiin su'aasha taagan waxa ay tahay Sheekh Xaaji Macallin Shariif sida loo sheegay maadaama uu qabo cudurka kansarka waqtigiisa waxa ka haray 2 bilood. Waxa uu qoray warqad dardaarana uu ku leeyahay carruurtiisu inay bil waliba bixiyaan mushaar ku filan 6 qofood inta ay nool yihiin. Xusuusna u daawade in ganacsade Sheekh Xaaji Macallin Shariif uu yahay bukaan la ildaran cudurka kansarka, nolosho idilna ka soo quustay, waliba loo sheegay goorta uu geeriyoon doono. Ganacsadahu maalintii uu u suntaday in aakhira loo sagootin doono ayaa si fudud lagu gaaray, haba yaraatee wax saameyn oo soo gaarayna ma jirin. Intaa waxa sii dheer in uu dareemayay inuu xanuunka ka sii yaraanayo. 5 bil kadib ayuu ku laabtay isbitaalkii u sheegay cudurkan inuu qabo, dalkana waxaan looga qaban karin. Baaritaano dheer oo la sameeyay kadibna waxa loo sheegay in haba yaraatee wax uu qabo aysan jirin. Ganacsadahu markaa kadib waxa uu noolaa oo dunida dul taagnaa 17 sannadood. Waxa sii kordhay dhammaan hantidii uu lahaa iyo sharafkiisii oo idil. Maalinkii dambe goor salaadii subax ahay ayuu soo aaday masaajidkii, kuna geeriyooday ragcadii ugu dambeysay sujuudeeda. Markii odagii la aasay 7 maalin kadib waxaa la furay boorsadiisii, waxaana laga helay warqadii uu qoray markii uu geerida sugayay ee dardaaranka ahayd ee carruurtiisa faraysay in gabadhaasi mushaarkeeda si joogta loo siiyo. Wiilkiisii weynaa ayaa durbadiiba gaaray gurigii ay deganeed maamadii 5 carruur haysatay. Markii uu garaacay ayay ka furtay, wuxuuna ku yiri waxaan ahay ina hebel, waxaana kuu sidaa mushaarkaagii. Maamadu waxay ku tiri u sheeg aabbaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna deeqay. Wiilkaygii weynaa ayaa qaan gaaray oo 7 maalmoodba shaqaynaya, mushaarkiisana loo soo hormariyay. Wiilkii oo argagaxsan yaaban ayaa waxa ku yiri maamo, aabbahay Allah u naxariisto, 7 maalin aad sheegaysaba wuu aasan yahay. Waxa ay ku tiri waxaan u ducayn doonaa intii nafa igu jirto. Waxa uu ahaa wehelkayga nolosha iyo ninkii sharti iyo halistii aan ku sii wajahna iga badbaadiyay. Waxaan Allah uga rajaynayaa inuu isagana naar ka badbaadiyo oo jannadii ku irsaaqo. Haddaba daawade, ma kula tahay in maanta wixii ka dambeeya dadka duruufta hayso ay tahay in aan lagula tiigsan ee la garab istaago? Aan ku wada dadaalno dhammaanteen in dadka duruufaysan aan garbahooda istaagno, si annagana marka aan duruufaysannahay alla noo garab istaago. Cudurrada halista ee khatartana nooga badbaadiyo. Fadlan gaarsii qisadan walaalka oo laga yaabo inuu maanta dad kale inuu dhibaateeyo ku fikirayo. Laga yaabee in maanta xumaan uu damacsanaa qisadan markuu dhagaysto darteed inuu ka haro. Laga yaabee in lacag jeebkiisa ugu jirtaa oo uu shaydaanku kula talinaya inuu marna bixinin, inuu ku caawiyo walaalkii baahan oo garab taagan kana warhayo.